waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. meel kasta oo aad dunida ka joogtaanba soo dhowaada. aad bay sharaf noogu tahay in aan halkan mar kale ku helno fadiilatu sheekh al-ustaad al-imaam dr sheekh axmed nuur xafidahullah wa racaahu. rabbi subxaanahu wa tacaala ha xafido sheekhina imaamka masjidka abubakar asidiiq ee washington seattle. runtii waxaan jecelnahay maantay inaan ka hadalno mowduuc aad iyo aad u qiimo badan, mowduuc faa'iido badan u leh bulshadayada. fadiilatu imaam dictor sheekh axmed nuur, waxaan jecelahay inaad ila soo dhoweysaan sayidulkariim. marka hore waa kusoo dhoweynayaa falyatafadal mashkuuran wamaajuura. جزاك الله خير وبارك الله فيك الأخ أحمد. إذا وقع يا دمان ولا لها نلصق على دمانتين وايد مود السلامي وأنا دوهي. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور داعي الكبير الشيخ أحمد نور حفظه الله ورعاه رب سبحانه وتعالى. سيدي هكوغو بشارة جنة الفردوس. دنبي والد كان الله دعفو صاحب يال شريعة إسلام كأي وناكسن شرفت بدن لو حنكو براني مالين كخير بدن بل كخير بدن نبي كخير بدن قف كخير بدن مقالة كخير بدن. rabbi deeqdiisu way badan tahay. rabbi hana guddoonsiiyo wanaagiisa meeliba meesha ay ugu khayr badan tahana rabbi hana waafajiyo. waxaan ku jirnaa bisha shacbaan oo fadaa'il badan ay culummada soomaaliyeed iyo culummada caalamkuba ku sheegeen, kuwaasi oo ay ka dhaxleen nabigeena maxamed nabad iyo naxariiso korkiisa ha ahaato. si kastaba ha noqoto, bishaas ayaan jecelnahay inaan maanta dul istaagno faa'iidooyinkeeda, qiimaha ay leedahay, sharafteeda, waxa nala gudboon iyo waxa aanu samaynayno annagoo kaashanayna culummadeenna sharafta badan oo ugu horeeyo imaamkeena fadiilatu sheekh al-ustaad dictor sheekh axmed nuur. sayidulkariim, fadliga bisha shacbaan haddii aad noo dul istaagto falyatafadal mashkuuran wamaajuuran. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد دمان ولا الله وميل كستو الدنيا كجوكتان وادي السلامي. maalmahan dadka coronavirus iyo cudurro iyo cabsi iyo adduun baa runtii maskaxdeena degay. waxaan isleeyahay bal waxoogaa aynu haddana xagga kale u jeedsanna insha allah oo iyadna ishalmaamin haddii alla idmo. bishan shacbaan maanta waa labo weeye. bilihii tirsigii hijriga ahaaba dadku dee inta badan waa la iska halmaamay. bilahan kale oo maaragtay bishan march inaan ku jirno oo bishii saddexaad ah ayay dadku wada xusuustaan. laakiin bisha kale oo shacbaan waa in la isxusuusiyo. waa bisha ramadaan ku xigtay. waa laba maanta insha allahu tacaala. waxaan rabaa marka inaan wargeliyo inay jiraan fadli bishan si gaar ugu soo arooray. waxaa jira saxaabi la odhan jiray usama binu zayd radia allahu canhu wa ardaah oo rasuulka su'aal mubaashira ama toosa weydiiyey oo ku yidhi yaa rasuulallahiyow, maxaan u arkaa bishaan sida aad ugu dadaalaysa soonka inaadan bilaha kale ugu dadaalaynin. marka maxay wadataa weye bishan oy gooni la tahay oy bilaha kale kaga duwan tahay? rasuulku wuxuu kaga jawaabay sala allahu calayhi waaalih wasalam, waa shahrun yakfulu nnaasu canhu. waa bil ay dadku halmaansan yihiin. waa bil bayna rajabin wa ramadaan bay u dhaxaysaa. bisha rajab iyo bisha ramadaan bay u dhaxaysaa. waa shahrun yurfacu alacmaalu ilaa rabbi alcaalamiin. waa bil acmaasha iyo camalka rabbi loo gudbiyo. waxaan jeclahay buuri wa uxibu an yurfaca camalii wa ana saa'im sala allahu calayhi waaalih wasalam. waxaan haddaba jeclahay buuri in camalkayga alle loo gudbiyo aniga oo sooman in loo gudbiyaan jeclahay. sababtaa darteed uu soonku u batay bishu inay tahay bil ay dadku halmaansan yihiin. culimmadu muslimiintu waxay yidhaahdeen, ibnu rajab alxambali raximahullah, markii bishaani ay u dhaxayso laba bilood oo waaweyn. bisha ramadaan waad ogtihiina waa bishii ugu sharaf badneed oo qur'aanka la soo dejiyey. waa bisha leylatulqadrigu ay ku jirto. waa bisha ugu fadli badan bilaha. bisha rajabna
waxay ku jirtaa alashhuru alxurum afar bilood minha arbacatun xurum uu ilaahay leeyahay afar bilood baa 12 bilood ka mida afartaasoo bilo iyaguna xurmooyin gaar u leh saddexna 3 mutawaaliyaad buu rasuulku yidhi way xidhiirsan yihiin midna waa goonideed oo waa bishan rajab marka bisha rajabna waa bil iyaduna fadli badan oo afartaa bilood oo ashhuru xurumka la yidhaahdo oo la yidhi naftiinna iyo ummaddaba ha dulminina ayay ku jirtaayoo fadli badan oo xitaa jaahiligii hore iyo gaaladii iyo aynan carabtii horeba dagaal ayna geli jirin fadligeeda dartii marka bishaasoo fadli leh iyo bisha ramadaan oo fadli leh ayay u dhaxaysaa shacbaan dadku way halmaansan yihiin sidaas daraaddeed baa rasuulku wuxuu yidhi in la nooleeyo ayaa loo baahan yahay inuu maaragtay la soomo marka soonkuna waa wax u fiican oo lagu nooleeyo weeye ee acmaasha bishaa waxaa jira buu yidhi in acmaashana rabbi loo geeyo waxaana jeclahay buu yidhi aniga oo sooman inaa camalkayga rabbi loo geeyo axmedow culimmadu waxay yidhaahdaan oo kale daacada xilliga la halmaansan yahay ee dadku aynan ogeyn camalka la qabtaay wuu ka fadli badan yahay xilliga kale hadda ramadaan ninkiiba alla gaadhsiiyo haddiiba sanadkan dee taraawiix iyo tahajud iyo masaajidaba la isugu yimaado sidii aynu arki jirnay dadka oo dhan oo wada kala ordi baad arki qof weyn iyo qof yar iyo rag iyo dumar iyo carruur kulli waa kuwan taraawiixda loo wada cararayo laakiin bishaan waa la wada halmaansan yahay sidaas daraaddeed xilliga la halmaansan yahay camalka la qabtaayba waa fadli gaara buu yeelanayaa waxaa ku jiray dadkii salafka ahaa nin waxaa jiray la yidhi 40 sano wuu soomi jiray maalintii 40kaa sano subaxii buu gurigiisa ka qaadan jiray 2 xabo oo muufo ah marka xaaskiisu waxay moodaysaa inuu ku cunay shaqada iyo dukaankiisa inuu ku cuno qolyaha dukaankuna ma ogeyn waxay moodeen gurigiisa ka qadeeyo dhaxduuna ku sadaqaysan jiray sidaasay marka camalkooda u qarsan jireen fadligaasay marka ay bishani shacbaan gooni la tahay rasuulkaana saa uga warramay sala allahu calayhi waali wasalam naam ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر له ذنبك صاحب الفضيله اعماشا ما غجر ما غمر ايا كور لو قادا او ربي لو يا سيدي فليتفضل مشكورا وماجورا acmaasha waxaa rabbi loo geeyaa 3 jeer oo kala duwan waa sida axaadiisa iyo dee aynu ka faa'iidaysayna sharcigeenna xaniifka ah mid waxaa la gudbiyaa 24 saac ee isku wareega mar baa rabbi acmaasha loo gudbiyaa oo rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi waali wasalam yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyli wa malaa'ikatun binnahaar ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر waxaa isweydaaranaya oo shaqada soo gelaya shiftiga hadda qaybaa soo gelay casarkii qoladaasi subaxii bay ka baxayaan malaa'igta qolo kaloo malaa'igta baa subaxii shifti soo gelaya iyaguna casarkii bay ka baxayaan salaada casar iyo salaada subax bay isbedelaan yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyli wa malaa'ikatun binnahaar waxayna kulmaan labadaas salaadood markaasaa rabbi markay u tagaan ribood bay geynayaan waxyaabaha isagoo alle ka og iyaga ayuu haddana warsanayaa waxaa jira shaqa loo diray qofka markii shaqa laguu diro waa in riboodkii la weydiiyo maxaad soo qabatay alle isagoo og buu weydiinayaa sideed uga timaadeen dadkaygii sideedna ugu tagteen labadaas su'aal baa la weydiinayaa waxay leeyihiin taraknaahum wahum yusalluun waataynaahum wahum yusalluun waxaan ka soo tagnay iyagoo tukanaya waxaana u tagnay iyagoo tukanaya marka waa salaadii subax iyo salaadii casar bay isbedelayaan ayib haddaba halkaa axmedow waxaa ku jiro faa'iido badan in la is ogaado qofka salaada subax aan tukanin xuduurka iyo xaadirinta waa ka maqan yahay qofka aan casar tukanin xuduurka iyo xaadirinta dadka la leeyahay waa ay ka warbixinayaan malaa'igtu waa ka maqan yahay marka labadaa jeer bay isbedelayaan kaas marka 24 saacba marbaa riboodka rabbi loo geeyaa asbuuciina toddobaadkiina marbaa ribood alle loo geeyaayo waa maalinta khamiista ah oo habeenka jumcadu ay soo gelayso
ayaa rasuulku waa kii lahaa acmaasha ayaa alla loo kor qaadaa oo waxa weeyaan marka la soomo ina acmaala bani aadam tucradu kula khamiisin leylata aljumca falaa yuqbalu camalu qaaticu raxim buu yidhi rasuulku sala allahu calayh waali wasalam habeenkaa ay jumcuhu soo gelaayo ayaa camalkaa loo geeyaa rabbi la aqbalina maayo qof qaraabo goys ah camalkiisa laga yeeli maayo kaasina waa weekly waa toddobaadkii marka daily waan soo marnay weeklyna waa markaasoo kale haddana yearly ama sanawi ama sanadkiiba mar ayaa iyadana loo kor qaadaa markaasaa waxay ku beegan tahay axmed oo bishan shacbaan kalu fiirsada 12 bilood bishan shacbaan baa acmaasha alle loo geeyaa waana xadiidkana laga faa'iidaystay uu yidhi rasuulku waa bil oo ay dadku halmaansan yihiin شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وشهر يرفع الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وبالأعمال إلهي اللوجي وحان الجعل يقول أنا وصومن إن عمل كي اللوجي مركز صدح على قيبوت أيا إلهي سبحانه وتعالى وحان كوي دي سنة أعماشين أو إلهي الرالي كي هي إن رب اللوجي ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيلة ربي حنقدر كواس asagoo naga raallay aan hana oobsado rabbina jannatul firdaws hanugu kulmiyo bisheen nabi maxamed ugu soo badnaa marka laga reebo bisha waajibka ah ee rabadaan sayidi falyatafadal mashkuuran wa maajuuran rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam dadka wax ka wariya waxa ugu ogaal badan dadkii la joogay xaasaskiisii iyo asxaabtii marba u dhaweyd Aisha radiyallahu anha baa waxay leedahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam ma ra'aytu ما أنا أركن رسولك بالكسوم بدنا بش شعبان ومركي لقيتها رمضان يعني رمضان وواجب كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا بيننا كان يصوم شعبان كله شعبان أردن وصوم جري شعبان وصوم جري وحير مؤوي مركي لبدا حديث كله بوحة فسرية كان لها وسومي جري انت بدن بسومي جري وحيرم اوجي انت كلا وسومي جري مركب بشا شعبان بقى هيدا احمد وبشا ugu badan oo rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam markii laga soo tago bisha ramadaan bisha ugu soo badnay waa bisha shacbaan naam ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك ليله الحكم ayaan soo xasuustay 15 shacbaan barigan xalwada iyo subag iyo isku cunu jirnay oo la leeyahay sanadkiiba halka mar ayaa acmaasha kor loo qaadaa habeenkaas ka waran dad baa 15ka kadib soonka bilaaba iyadana ka waran habeenkaasi ma yahay habeenka leelatul xukunka sayidi falyatafadal mashkuuran wa maajuura waxyaabaha axmedow u baahan runtii in la saxo habeen leela leelatul xukun iyo habeen leela leelatul qadar ma kala jiraan waa isku mid weeyaan ليلة حكمكو وليلة القدر ليلة القدر كنا وليلة حكم سيدنا وحان كفايدي سيدنا قرآنك إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مسلمين مركب وحويان ليلة حكمكو وليلة القدر وبشر رمضان أيو كجرة مركب بشان هبينك الشن يطمنك أي تهي in habeenkaa la isku soo ururo oo xaflado la samaysto oo saad sheegaysaa xalwada la isla dhaqo oo maaragtay masaajidda la soo buuxiyo oo habeenkaas laga dhigto habeen leelatul xugum la yidhaahdo wixii dhiman lahaa iyo wixii dhalan lahaa iyo wixii fulaan lahaa baa habeenkaa la kala xukumi la yidhaahdaa arrintaasi waa arrin aan sal lahayn axaadiista ku soo aroortayna waa axaadiis wada daciif iyo mawduuca weeyaan oon la qaadan karayn waxaa marka jira oo baraarujin isagu mudan in xadiis uu soo arooray saxiix ah oo habeenka 15 sheegaya inuu fadli leeyahay kaasoo dhahaya rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam allah ayaa taalacanaya dadkiisa in allaha la yattali'u fi laylati an-nisf min sha'ban habeenkaas 15 ilaahay baa dadka intuu taalacdo ayuu fayaghfiru li jamii'i khalqi dadkiisa oo dhan uu dhaafaya dambigooda إلا لمشرك أو مشاحن قف مشرك أو قال
iyo qof kale ay kala dhaxaysa cadaawad oo xiqdi ku jiro ruux kale laba qof oo wax ka dhaxeeya sidoo xadiidkii kaleba uu cabirayo oo rasuulku la tuftaxu abwaabul jannati yawma al-ithnain wa yawma al-khamis albaabada jannada la furaa maalinta khamiista iyo maalinta isniinta ah alla wuu u dhaafaa dunuubta qof kasta ilaa qofka mushriga ah iyo qof isagana uu qof kale shaxnaa ay kala dhaxayso kaasina waxaa la odhanayaa labada ruux oo wax ka dhaxeeya suga ilaa ay soo heshiiyaan marka xadiidka fadliga lagu sheegay oo habeenka fadli baa lagu sheegay laakiin fadligii ma keenayo laysumana darin in la yidhahdo maalinteeda oo keli abaa la soomaya oo qofku siduu inta kale isaga daaqi u joogo u yidhahdo habeenka 15 habeenkeedana la yidhahdo masaajidda la soo buuxin xaflad baa laga dhigan hal waa la cunayaa waa la soo imaanayaa waa la dikrinayaa waa la xadraynayaa waa la fulaani yani habeenkaas marka si aan u kala saarno habeenku fadli wuu leeyahay laakiin ma aha in la yidhaahdo cibaado gooni ah oo khaasa habeenka lagu khasiso oo gooniha looga dhigo marka waxaa la rabaa qofku inuu acmaashiisii hore uu samayn jiray inuu habeenku ka mid noqdo inaad maarata haddaad tukan jirta salaatuleyl aad habeenkaana tukato haddaad ducaysan jirtay ducayso haddaad quraan aqrin jirta aqri haddaad wax baxsan jirtay sadaqayso haddaad soomi jirta soon laakiin inaad isaga gooni kaga dhigto waa midda la diidaya waa taas wey naam ka waran 15 bisha Shacbaan haddii soonka la bilaabo oo 15 la iska mushaaho nacam masalada waa mas'ale kale iyaduna waxaan rabaa inaan uga faa'iido dad badan baa jira oo raba inay maalintaas soomaan ama ay maalinta inta ka bilaabaan 15 iyo waxa ka dambeeya ay soomaan arrintaas iyaduna waa arrin aan banaanayn oo xadiis baa soo arooray rasuulku leeyahay idan tasafa shacbaan haddii bishu idan shacbaan ay 15 noqoto falaa tasuumu ha soomina rabad u fiirso xadiiskaas waa xadiis saxiix awey sheekh al-Albani uu saxiixiyay wuxuuna ku tilmaamayaa 15 markay noqoto shacbaan ha soomina baa leeyahay waxaa kaloo jira xadiis kale oo rasuulku u lahaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam bisha ramadaan ha kala hormarina bisawmi yawmin aw yawmayn maalin ama laba maalmood soonkooda ha kala hormarin ilaa rajulan kaana yasuumu sawman oo falyasum qofki isagu soo soomi jiray ha soomo waxaan rabaa marka labadaa xadiis inaan jamcino لأن حديث والله جمعية جمعود مركب وحنا قنايا قفكي بشان شعبان نري ما أنت والله ما أنت خميس وكوبيجن تقريبا شن يلا باتنك بشا ماج صوم معها كوبيجن سنة كانت 2020 جا بشان مركب أو ما أنت لبا شعبان قفكي حتى سي بلعبة أو والبا هدو ويرى حتى هالمالك كسي صومة لبا كصومة صدق كصومة دوان جانس وحويه ليا 15 kadibna inuu sunnaha sii wadi karo laakiin qofkii aan soomin ee yiraahdo 15 kan ka bilaabaya taa lama ogola marka waxay labada xadiis lagu jamcin ruuxii soo soomi jiray ha soomo ilaa bishu ay ka dhamaato uu wadan karaa laakiin qofkii aan soomi jirin inuu yiraahdo 15 kan ka bilaabi lama ogola naam ma sha Allah jazakallahu khayr wa ahsana Allah ilayka wa ghafara lahu dhanbak baabu rayaan dadka jannada ka gala rabbi ha kugu daro oo dadka sooman loogu talagalay sayidii rabbi subxaanahu wa tacaala ha ku xafidahana ku badbaadiyey sida uu u badbaadiyey nabiyullaahi muusa calayhi bisalaam sheekhul faadil sunna qada ahaan qof qalla lagu leeyahay ma soomi karaa bisha shacbaan weliba gabdhaha oo iska cadilan su'aal kaloo gabdhaha ku saabsanna waa kuu soo wadaa laakiin isagoo sunnadii nabi maxamedna raacaya soonkii badinaya gabadhii ay badinayso ama ninkii uu badinayo hadana qada ahaan ma u niyeysan karaa sayidii falyatafadal mashkuuran wa maajuuran axmedow weliba maaha inay qada ahaan u soomaanaya qadaha waa in la soomo oo laga gaadhsiiyo caaisha radiallahu canha baa waxay leedahay kaana yakuunu calaya siyaam soom baa lagu lahaan jiray oo ramadaankii horuu soon soo raacay oo dumarka inta badan soon baa ka taga marka qaybtii ka tagtay baana jaanis umay heli jirin inay soonto taasna waa limakaanati rasuulillaahi oo rasuulku la joogay oo hadduu gabadha ninkeedu la joogo hada xaq buu ku leeyahay sunnihii oo kale iyo inayna iska soomin ilaa biamrihi ma ogi marka sidaas daraaddeed qaduhuna waqtigiisu wuu dheer yahay oo jaanis bay u haysatay ilaa qadaha kale ka yimaado laakiin qaduhu sunnaha wuxuu uga duwan yahay waa waajib sidaas daraaddeed
soomka kale waa inuu kugu gaadhin haddii ramadaankii kale kugu soo gaadho qofkaasi uu cudurdaarna uunan haysanin aathim buu noqon aathim waa dembiiluu noqonaya hadduu alla rabana wuu ciqaabi hadduu alla rabana wuu dhaafi sidaas daraaddeed waxay tidhi kaana yakuunu calaya siyaam soom baa lagu lahaan jiray jaanis uma heli jirin ilaa shacbaanka kale ay ka timaado shacbaan marka hadday timaado cid la sugi male laa oday baan amar laga qaadanaynin laa qof kalean amar laga qaadanaynin wixii waajib oo ku saaran oo qada ah oo lagu lahaa waa inaad bishaan guddo marka gabdhaha qadaha lagu leeyahay dad badan baa qada lagu leeyahay laakiin gabdhaha ugu badan maxaa jira ramadaanka inta badan soomku waa ka jabaa marka dumarka qadaha lagu leeyahayow ka faa'iidaysta bishaan inaad wixii lagu lahaa aad soontaan si ayna kugu gaadhin dembi ramadaan kugu gaadhin oo qof dembiile ana aada u noqonin insha allah nacam su-aasha aad weydiiso oo ku saabsanayd sunna ahaantii ajirkeedii ma helayaan qadihii oo waajibkaa bay gudanayaan yani inama alacmaalu binniyaat camalka sideedaba hal niyo unbaa la rabaa in lagu guto laakiin sida kuwa bilowday kelimadaadaba axmedow wakti buu ka fadli badan yahay meeluhu way kala fadli badan yihiin dadku way kala fadli badan yihiin marka waktiga faadilka oo fadliga badan cibaadada la qabtaayey waxay ka fadli badan tahay iyadoo cibaadadii kale marka sidaas daraaddeed cibaadadaa fadli badan waa lagu heli laakiin sunni iyo waajib mar ma wada noqonayee واجبكي يا كقدمية إن شاء الله نعم ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر له ذنبك صاحب الفضيلة سيد الكريم قبله وعبنيان رجع وحيل ليه إنسانك السنة ده ما أقرأ مركا أديكو نونا كلا سارة يا السنة يا قلدو نينكو حق ما أقول ليه قبل يسيو صومن وإلهي درتي سو صومن إنه يراهدو ما سومي كرتيد وأنا قاقوباهن فليتفضل مشكورا ومأجورا صومك sunnaha axmedow soonku markuu yahay tatawuca sunnaha oo waajib uusan ahayn qadana ma aha ramadaanna ma aha waa waajib kalena ma waa soon sunna ah gabadhu ma soomi karto ilaa idan inay ninkeeda ka haysata mooyi sidaana waxaa yidhi rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam waa xadiid imaamu bukhaari ku sugan cashirkii shalayga aan akrinayay imaam bukhaari ayuu darsigaasu ku jiray xadiidkaasi marka gabadhu soon sunna ah ninkeeda waa inay uga haysato ogolaansho haddii uusan waxba ka keenaynin oo wax dhibaata uusan ka keenaynin way soomi kartaa laakiin haddii ay ka baqayso inuu ama dhibsado ama inuu u baahanayo waa inay idan uga qaadato ay weydiiso ay tiraahdo soon sunna ah raba inaan maanta soomo waa inuu go ahead siiyo oo maaragtay ay la wadaagto insha allahu tacaala nacam amaa kan waajibku hadduu waqtigii sii joogo cidna la weydiin maayo isaga قلا مركي سومن تهانا أو واجب كي قلنا يشوف وواجب ويان قضاء هذي تسدا عن شيء مثلا وقتي هراء هذي بليه هراء كل ولي جانس ويش هدول هذا ما أنت وكذي بريبة سومية ويسمين كرا ووشي كرا لكن مركي شعبان لسوق جارو سدا حديث كعائشة لقى قادنا يو سينا قبل الدم بيقول عندنا مركا يلا وعينا هراء كسون تعيد كلا فصحى وقام باهنا إن شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك قبل ما تدي صغري وحليهن أسوى هدو سومية هكورن سوى سوم كراهد مسؤوليتي إن شاء الله تعالى إسقى هيا مركا جانس كلو فراقة هيد السيو لكن صوم كودياشين لو تيد إن شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيلة naftooda waxaan iyagana u dardaarmaynaa gabdhaha cibaadada ayayna u diidin oo maaragtay waqtiyo badoo kale la helayaaye gabadhu intay sooman tahay cibaadada yaa loo diidin weliba hala baro oo ha lagu caawiyo insha allahu tacaala oo jaanis loo siiyo say gabdhuhu soomaan insha allah baarak allah ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيلة سيد الكريم كورونا فيروس كي و sii faafaya waxaad moodaa in hadda Mareykanku uu horkacayo cudurkaas kiisaska cusub magaalada hadda aan kala hadlayo 55 ayaa nagu ziyaaday shalay kaliya iyo maantay 400 iyo xoogaa ayuu marayaa 406 mise 405 qofna uu u dhintay dadka xataa inay isbaaraan ugu ma karaan wax taa wali isma baarin guryaha in la joogo waa la diidan yahay maxaa tala ah Sayyidul Kariim oo aad bulshada Soomaaliyeed كورونا فيروس كسينسا وليتفضل مشكورا ومأجورا horta marka koobaad ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga wada badbaadiyo ummadda allah ka badbaadiyo cudurkan dilaaga ah waxaan rabaa insha allahu tacaala waxaan ka siin lahaa madow waxoogaa nasaa'ixa ama talooyin
inaan u soo jeediyo dadkeenna oo inta badan talada aan qaadanin oo iska dhiga mariyo oo sida aad sheegi wada ordayo oo aan qaadanaynin wixii amaroo la soo jeediyo laakiin waxaan rabaa talooyin in anfacaya insha allahu tacaala inaan soo jeediyo marka ugu horreysa talooyinka dadka caafimaadku ay soo jeedinayaan aan qaadano talooyinka dadka caafimaadka ay soo jeedin wasaaradaha caafimaadka qolyaha healthiga iyo ka shaqeeya maarta caafimaadka dadka dhakhaatiirta ee hawshan ku howlan wax alla wixii talo ay soo jeediyaan oo ay ka mid tahay yaan la isu dhowaanin yaan la isi salaamin yaa nadaafadii ha lagu dadaalo wixii talo ayna siiyaan aan qaadan waa marka labaadee talooyinka ay xukuumaadku iyo dowladuhu soo jeedin ama gobollada aad joogtaan ay soo jeedinayaan iyagana hala qaato waxaa ka mid ah kuyaha hala joogo amarka haddii la jebiyo yani sababta loo joogayo waxaa la diidayaa dadku inay isu yimaadaan inuu cudurkii sii faafo marka sidaas daraaddeed talooyinka gobollada iyo xukuumaadku ay soo jeedinna hala qaato marka saddexaad axmedo waxaan kula dardaarmi lahaa cudurkani waqti dheer buu qaadan karaa ilaahay baa og waxaa laga yaabaa inaa bilo uu qaato waxaa laga yaabaa inaa waxyaabaha suuqa laga waayo waxaa suuragala inaa marka wixii cunto ah oo ooli karaysa iyo daawooyinka iyaga naftooda ooli karaya iyo cuntooyinka ooli karayo ee soomaalidu ay taqaano hala gato waxaa alla wixii la heli kara iibsada oo guryaha dhigta waxaa laga yaabaa berri in la waayo arrinta kaleo axmedow aan uga faa'iideyn laha waxaa ka mid ah waxaa jira laleeyahay oo laisla dhex marayaa dad iska dhigaya neris iska dhigaya caafimaad iska dhigaya boolis iska dhigaya fulaan oo dadka albaabada kusoo garaacaya oo maarata cudurkii qaybinaya oo dhowaan isaga kaa dhigaya maarata inay wax kuu sheegayaan laakiin cudurkii qaybinaya dadkaasna hadday jiraan iyo haddayna jirinba waa soomaali hadda laima sheegin laakiin dad kalaa la ii sheegay marka waxay rabaanba ha noqdaan kuwa soomaaliya naftooda waa kuwii hadda media laisla dhex marayay oo iyaga naftoodu cudurkii qaboo qaybinaya siday doonaanba ha noqdaane waa inaynu inagu u qaadano si dhab ah waa inaan u qaadano albaabadiinna qofna ha ka furina qofna maaragtay ha ku soo dhowaynin marka arrintaa taxadarkeeda ka qab insha allahu tacaala arrimaha kaleo axmedow muhimka iyadana oon rabo inaan usoo jeediyo culimada iyo dadka dhakhaatiirta iyo dadka caafimaad ka shaqeeyaba cudurkaani laa qadarallahu dad uunbu ku dhacayaa wuuna ku dhacay dee waana loo dhintay dad soomaaliyeed haddana kuwa badan buu hayaa marka waana loo dhimanayaa marka waxaynala gudboon seen dadkeenna u aasi doonnaa sideen ugu tukan doonnaa sideen u dhaqi doonnaa waa masaa'il u baahan oo culimmaduna ay ka hadleen oo aragteen laakiin haddayba suuro gasho waa inay isku tacallujiyaan dadka gobollada joogiyood waddamada dhan ay ka shaqeeyaan inay la xidhiidhaan qaybaha healthiga iyo caafimaadka ku shaqa leh oo dharkii la helo oo dad loo tababaro oo qalabkii la siiyo oo marka arrintaa inay dad muslimiinta noo tababaraan arrimaha annagu waanu isku daynay oo waanu ka shaqo gallay oo weli way noo socotaa insha allahu tacaala isbitaalada in lala xidhiidho dadka caafimaadka lala xidhiidho la yidhaahdo maarata waxaa u baahannahay dadkaas in loo diyaariyo hadday berri qof dhinto seen yeelaynaa marka arrintaana inaan kulligan xil iska saarno insha allahu tacaala arrimaha axmed aan dardaarmi laha waxaa ka mid ah booqashada iyo soomaalidu waa dad iska socda waa dad maaragtay maalinba guri tegaya marka booqashada in la yareeyo oo dadka miidiyaha ilaahayna siiya hala adeegsado facetimekii iyo whatsappkii iyo taleefanadii la dirayay iyo ummadda ka salaama oo kala hadlo oo halkaa lagala xidhiiro marka isu tegiddii tirada badnayd ee la isdaba wareegi jiray maalinba guri la tegi jiray arrimaha iyagana ha laga waantoomo oo hala joojiyo arrimaha ku saabsan dadka hadduu qof uu ku dhaco laa qadarna qofku ku dhaco cudurka ha qaybinin oo dadka kale ha u tegin oo ha galaafanin qofka ugu talagala inuu dadka kale u gaadhsiiyo uu saa ku dilo wuxuu noqonayaa qaatil qof wax dilay ayuu noqonayaa nasaa'iix gaara axmedow waxaan u jeedin lahaa dadka uberka wada dadka tagaasida wada dadka howlaha ka shaqeeya dadka waxay ka mid yihiin ugu badan oo hadda hawshaan qaadi karay ka mid maxaa jira dad badan baa soo koraya dad badan baa u imaanaya naftaadu hadda waa qufacaysaa waxaan malayn uber baa wadaamiya moogi hadda waayahan waa la kala carara haddii qofku ficil la arko waa la cararayaa qofku wuu boodayaa marka ilaahay naga wada badbaadiyo dadkaas wada hadda magaalada hadda aan kaala hadlayo siyaala washington nin baa uber kaa waday nin baa soo koray hadda ninkaas waa u jiifaa 25 beri camal buu hadda cudurkaa hayaa
saaku dadka la hadlaayay oo face uu soo galay live welina waa xanuunsan yahay nin kale wuu dhintay oo maanta la soo geliyo isaguna uber driver ahaa marka dadka idin soo korayo dadka walaalahay oo uberka wada ma odhan karna ha shaqaysanina ma dhihi karno laakiin intii suuragala inaad qalabkii haysataan inaad iska buufisaan inaad iska tirtirtaan inaad iska ogaataan qofka ku raacaya isaga naftiisa inaad qofka tacliimaad siiso ood u sheegto waxa uu samayn lahaa hindhisada badan iyo intuu baabuurka ku jiro iyo howlaha aad iska ilaalin lahayd yani arrimahaasna insha allahu tacaala in iyadana la ogaado haddii wax dhaco laa qadar allahu dadka ugu habboon in markaaba lala xidhiidho oo qof dadka dhalinyarada axmedo waxaan soo jeedin lahaa cudurkan waxaa la inta badan dadka waayeelkabaa u dhinta laakiin dhalinyaradu cudurka naftoodii way qaadi karaan hadda ninkan taxiga uberka waday oo magaalada iyada jiifo waa nin da'ya waxaan ku qiyaasay markaan arkay 30 ilaa 35 inay da'diisu ay jirto marka dad uu ku dhacay oo kale way jiraan marka wuxuu noqonaya qofkaasi inuu sii qaybiyo dadkii waaweynaa oo da'daha isagana uu u geeyo marka insha allah yuuna qofna u malayn inuu oranin aniga iguma dhacayo ama aniga uma dhimanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii qadarkaaga hadduu ka dhigo qofka da'da yar iyo kan weyn labaduba waa u dhiman karaa ugu dambaynta axmedow waxaan masaladan kusoo khatimi lahaa tadaruca ilaahay iyo ducada iyo maadaama bisha fadliga badan aan sheegno soonkuna uu ka mid yahay waxyaabaha ducada la aqbalo oo qofka saa'imka ducadiisa waa la aqbalaaye aan soonno insha allahu tacaala oo ilaahay aan barino bishii shacbaani la soomi jiray baan ku jirnaa marka si ay ilaahay subxana wa taala ummadana inuu waxaan u ka dulqaado marka inahaasaan oran lahaa insha allah fadiilatu imaam isbooqashadiina wax uma dhibayso soo maahan oo haddaanan maanta hadda qaraabadeyda booqan magaaladan dadaan qaraabanaha jooga taada way joogaan waa la isbooqan jiray haddaanan booqan wax dembihi ma jiraan soo maahan wixii sharci markii sideedaba masale kasta oo fiicnayd marka haddana arrin daruuro ah ay timaado wax dhibaataa ka imaan mayso hadda salaanta waa isa salaami jiray dadka gacanta lagu wada salaami jiray waa wax fiican oo sunno oo wanaagsan baad laakiin hadday sunnadii khatar ka imaanayso waxay noqon in laga joogsado oo afkii laga salaamo booqashadii hadday khatar ka imaanayso waxay noqon inaad ka salaan taleefanka inaad ka salaanto marka shaygii kasta oo sharciga ku bannaana markay daruuro ay timaado daruuradii baa jaanis kuu siinaysa aad ka joogto insha allahu tacaala marka wax dhibaato ah male dadka ha laga salaamo miidiyaha lagala hadla insha allah qof daawadayaasha ka mid wuxuu leeyahay xajkii ayaa soo dhow haddii arrintan sii socoto maadaama xajku waajib yahay maxaa xal ah allahu aclam lama garan karo xajkii sanadkan si uu yahay dadka waa isu diyaarsanaayeen xajkii waa u diyaarsanayn dadkii waa la qabanayay dad badan baa ilaa hadda diyaar noo ahaayo de dadkii xajka diyaar u ahaa marka laakiin sanadkan xaaladiisa qof ka og male bal mas-uulu canhu biaclama min asaa'il kan weydiinaya iyo kan la weydiinayaayo xajku inuu dhiciyo in kale lama og haddii ay dhacdo in la joojiyo xajka way dhici kartaa intaasoo sanaa la joojiyey ilaa hadda waxay sheegayeen taariikhda islaamka ee xajka intii soo martay wuxuu noqon karaa haddii la joojiyo xilligii 40aad oo la joojiyey buu noqonayaa marka way soo martay taariikhda islaamka xilliyo badan oo xajka la joojiyey oo cudur yimaadeen oo hawl kala timid oo sidaas daraaddeed la xiray ayaa xarameynkii oo iska haawan baad aragtaan oo albaabadu hadda u xidhan yihiin masaajidda islaamka oo dhan ba albaabadu u xidhan yihiin imaamyadii oo qur-aanka markay akrinaya wada ooyayaad u jeedaan kuwii aadaamaya oo markay soo istaagaan xaya cala salaax xaya cala falaax dadka ugu yeedhi jiray oo hadda maanta dhahaya assalaatu cala albuyuut guryaha ku tukada ama salluu fii rixaalikum guryaha ku tukada oohin ay soo dhaafaysaad u jeedaan marka garan mayno xajkina si ay xaaladiisii noqon doonto ilaahay subxaana wa tacaala aan barino hala soo duceeyo ilaahay subxaana wa tacaala gurigiisa inagama xayiro rabbi subxaana wa tacaala gurigiisa haynoo fasaxo dhammaanteenba insha allahu tacaala intii u diyaarsanayd iyo inta maaragtay tegi lahaydba insha allahu tacaala ilaahay cibaadada inagama xarimo dulmi ay dadku la yimaadeen iyo dembi ay la yimaadeen unbaa looga xarimaa wax insha allahu tacaala waana xaqiiqo waxa ina asiibayo inagu dhacayo waxay gacmaheenu gurubsadeen weeye marka markaasoo kale ilaahay ha loo tadaruco oo rabbi aan u jeedsanay insha allahu tacaala fadinta imaam dadka qaar waxay leeyihiin qiyaamihiyaa soo dhow ama adduunkiyaa la duubayaa ma la dhihi karaa maadaama mashaakilaadkaan yimaadeen ay leeyihin allah baa og qiyaamuhu de wuuba dhow yahayba qiyaamo ma ku jirnaa inuu qiyaamuhu dhow yahay taasi hadalba ma laho waagii rasuulku uu soo baxay buuba dhowaaba ataa amrullaahi marka la leeyahay amarki ilaahay baa iyo marka iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar
ساعدي بقى دواتي وفي قرآن كسدو كعبر فعل كعتا وفعل باستا وفعل ماضي فعل كماضي ووحتري مركا الرسول كنت ساق ما يقول أنا سيدا ساعد قيامه أنا جي ساعد وسيدا سان نسكنها سيدا لبدا فروض بنسكنها إسرافيل وعلي حامد وحديث كسيع وسوء عروري وحيابا عجبت بالمركا حديث كأركتو وقفكو يعني أرقق وكل عيود أغاني سيدا القيامة تاجنتهاي إسرافيل وحوقاتي بونكي وأفوف لها وانحنى بالري سيدا أنا ويسوق سيدا قفكو مركو آدام وأنتو أفكا صار وسلب جدو سيدا سوء ديارسين وسويا جو هيد إن اللي يرادو كله فلا يراد كليوسو مركا علامات بدن وكو قيامة هاي وقيامة علامات الصقرة وجرا marka khusuuf baa kamid dhulka dadka lala gooyo iyo marka wax badan baa suuragal laakiin ma oran karno cudurkan dadka qaar hadda ku xidhaayo qiyaamadii buu yahay iyo taas calaamad uma aha laakiin qiyaamadu de sideedaba u dhowdahay laakiin su'aal baa muhiim in la isweydiiyo qofka iyo annaga dhan layna weydiiyo rasuulka nin yiri qiyaamadii waa goorma wuxuu ku yiri ma acdadta laha maxaad u diyaarsatay marka su'aashaas inaga muhiim noo ay ogaada inta muhiimka noo waxa weeye qiyaamada maxaan u diyaarsanay هذا مهم إن كجوابنا إن شاء الله نعم ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيلة ربي سبحانه وتعالى جنة الفردوس حكوا جي أولاد هذا الله حفظ مرادك مكمل تقول تغلب فرة تشيش هذا ما لقيته أفر تقبل غير كجيران ربي حكوا السيو صاحب الفضيلة سيد الكريم ما قال أنا جوجو أفرتمية جور أما صدّن قياستي مر أيا أسبوع عن قديس الجرير كدعي كل كان لا جورية إن شاء الله بإذن الله الكريم ندعي ساكن لو مر إنه هو شنت أيو دعي ما لنا وتسيده كلاته أنا أتهاجن أيو دعي إن كلكي أيا وريجية مركا ندعي مدة كلو حان ربي إن نوجد عيسو نور حسن حسين نور عدل رئيس الوزراء هراء الصومالية أحانا إن سرقال سرقة كتر سنة إذا ماذا قرن كصوماليات kasoo shaqeeyay ururada human right-ka iyo humanitarian-ka organization kasoo shaqeeyay bisha cas macalinka ah lan qaybta cas macalinka ah London ayuu ku xanuunsanaya media waxa la soo geliyay waa dhintay laakiin waa ana baaray waa soo xaqiijiyay waa nool yahay waliba ilgeeriyaad ma saarna laakiin qofku markuu dhimanayo ilaahay un baa og waa nabad qaba markii ugu dambeysay asagana noogu ducay iyo guud ahaan masiibooyinkan socda Soomaaliya ilaahay inuu cudurkan ka badbaadiyo dowladdeena dowlad khayr ilaahay ka dhigo shacabka in qulubteena ilaahay mideeyo hooyooyinka jiran ilmihii ayaa laga cabaadaya hooyo waliba ilmihii ay dhibaato ka sheeganaysaa odayaashii banaanka la dhigo hooyooyinkii waa single mother waxbaa jira mashaakilku waa badan yahay saaxiib الفضيلة ducadaadii iyo dardaarankaagii bal tafadal mashkuuran wa majuura بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين أحمد ودردارن كيغانا waxaan ku soo celin lahaa shalayna waxaan filim marwaan ka dardaarmay maanta wataa marbaan kliibyo kale ka duubay qoliyo kale ay wareystay waan siiyay wadanka ni marka la yiraahdo wadankeenu imkaaniyaadka iyo awooddan wadamada hormaray ma haysano dadkeenu wax lagu baaro lama haysto wax looga hortaga lama hayo ummadda wada isdhax yaacaysa weeye meel lagu karantiira lama hayo isbitaale lagu daaweeyo lama hayo marka dadkan way wasi runtii tacarrud iyo waqti badan inkastoo alxamdulillah laga yaabo la leeyahay cudurkan inta badan qaboobaha iyo meelaha qaboobu ka jira oo Soomaaliyana ilaahay wuxuu ku soo aadiyay bishii ugu kululay waa bishii la oran jiray maaragtay bisha March waa bisha ugu kulul baan fil inay ahayd Soomaaliya habar ari baa la oran jiray marka kuleylkaas inta badan kuma noolaada ay yiraahdaan laakiin hadda waa kan dad joogo Afrika badan laga helay marka dadka waxaan u soo jeedin lahaa dadweynaha dadaalka in la badiyo oo awaamirta iyo talooyinka dawladaha ama ha noqdaan dawlad goboleeda ama dawladda dhaxan noqdo wixii mas'uuliyiin oo kolba idin jooga talooyinkooda in la dhageysto qoliyaha caafimaadka la dhageysto wasaaradda caafimaadka warkeeda la qaato oo maaragtay say tahay loo qaato marka arrintaasi waxay yareyn kartaa dhibaatada ayay yareyn kartaa hawl aan waxba laga qaban karin bay yareyn kartaa haddii la yidhahdo hala joogo shaqooyinka waa la fasaxaan maqlayay guryaha hala joogo isu soo bixii tirada badnaa iyo iska mushaaxii la isdaba wareegi jiray iyo makhaayadihii loo imaan jiray shaaha iyo wixii la isku soo ururi jiray oo dhan hala joojiyo qaadkiina ilaahay subxaanahu wa tacaala shalayna waan ka hadalay hanaga joojiyo arrintaasna aad baan runtii ay culimmadu uga hadleen waqtigeedii baa la joogaa in lagu soo celiyana ma rabno diyaarado dambe haddii la fasaxana qaadku ha ka hadho
arrintaasna adraarta ay leedahay dhibaatada ay leedahayna waa ka hadalnay culimmaduna mar walba iyo dadka dee dhakhaatiirtuba way ka hadleen waa dilaa waa baabi'iye waa hantideennii oo dhan soomaaliyeed qaad baa qaba etoobiya kenya qaba marka aan ka joojina arrintaana dibna ayaana loogu soo celinin waana laga mudaaharaadi doonaa waana laga dhiidhinayaa mana la ogolaanayo insha allahu tacaala iyaduna waa tala aan rabay inaan siiyo insha allah dadka ka qayb qaatay inay runtii qaadka hadda la qarinayay ee la soo geliyey ay qabtaan oo wasaaradda dowladda ay ka mid ahayd wasiir Omar iyo qolyaha booliskana yushkaruun waa arrintaas waa looga mahad celinaynaa runtii wax fiican bay ummadda u qabteen ha ka celiyaan suntaa lagu soo buufinaya dadka ha ka celiyaan insha allahu tacaala qof kasta oo soomaali ana mas-uul buu ka yahay kuwa gobollada jooga kuwa qaybta dhexa jooga qof kastaba mas-uul buu ka yahay qashinka ayaan waddankeena laynaga keenin insha allahu tacaala dadkii ka shaqaysan jiray oo masaakiinta ahay oo dumarkii iyo meelaha la fadhiisan jirayna wax badiil ah oo bedel ka noqda dadka soomaaliyeed waa dad khayr badan dad maalqabeena baa ku jira dad hantilayaala baa ku jira sharikaad waaweyn baa jira dowladda nafteedu waxbay uun haysaayo waxway hayaan ama gobollaha noqdaan ama tardhaxa ha noqdaan hadda coronaviruska lacag bay u diyaariyeen lacagtaasoo kale ha loo diyaariyo in dadka masaakiintaana waxoogaa dhammaal celina lagu sameeyo cooshado yaryar loo furo gabdhaha waxay shaahay ku samaystaan iyo waxay qaraha ay ku sameeyaanba bedel baa loo samayn karaa waxaan soo jeedin lahaa axmedow weliba culimmada soomaaliyeed iyagoo la kaashanaya dowladooda iyo gobollada ay joogaan in hay-ad zakawaadka iyo zakada ururisa in iyadana la sameeyo taasina ay noqoto masaakiinta dhowaan meeshii wax laga siin lahaa bedelkaasna ay helaan insha allah qof faqri aba lama heleen haddii zakadaa la ururiyo ruux faqri ah iyo ruux maaragtay sabool ah waddanka dhan laguma arkeen wa yu'khadu min aghniyaa'ihim ويرد على فقرائهم dadka aqniyada laga qaadi fuqaradaana lagu celinayaa wadankana takaaful ijtimaaci wax la yiraahdo baa ka imaan lahaa oo sidaas saboolku ku dhamaan lahaa laakiin wada xun bay ku baxayaan ama zakadiiba la bixin maayo ama nin waliba qaraabadiisu iska siistaa marka meeshii laga siin lahaa in dadka masaakiinta saa loogu qaybiyo simana iyadana waan soo jeedin lahaa marka ugu dambeynta insha allahu tacaala waxaan u ducaynaynaa dadka muslimiinta meel ay joogaanba gaar ahaan dadkeena soomaaliyeed ilaahay subxaanahu watacaala hayna badbaadiyo cudurkaani runtii wake up waxa la yidhahdo waa baraarujin weyn buu dadka ku sameeyey awood inayna jirin baa la fahmay ilaa awoodda alla ma ogi gaaladiibaa waxay qirayaan awooddii dhulku way dhammaatay ra-iisul wasaaraha talyaaniga waa aragteen baan filayaa hadalka cajabta badan uu yidhi oo uu leeyahay awooddii ardadu iyo dhulku way dhammaatay waxaa hadhay buu keli a buuhi awooddii samadaa dhiman yacni rabbi baa yaa dhiman ma ogiyo wax dad anu aan qaban karno ma jiro farihii baa la isku qabsaday maraykanka ood ogtihiin dowladda adduunka ugu xoog badnayd khalkhal baa ka jira iyo maaragtay deganaan la'aan madaxdoodii habeen iyo maalin ma seexdaan miidiyaha ayay sidaa u taagan yihiin wax ay qabtaan bay garan la'yihiin waddanka hadda waxaan filayaana saddexaad oo adduunka ugu sii badan buu sii marayaa coronaviruskii axmedow annaga adigu waxaad ka hadlaysaan magaaladiina qof baa ku dhintay annaga 24 saac ee hadda u dambeysay waxaa ku dhintay 20 qof taqriiban ka badan baa ku dhimatay oo maanta tiradu waxay maraysaa 150 qof bay maraysaa inta dhintay oo magaaladan ku dhintay magaalooyinka de New York iyo kuwa naga sii badanna waaba jiraanba laakiin magaaladii ugu horreysay bay ahayd waxa uu ku dhacay iyadoo warkeedaba daa 8 intii u dambeysay waxaan filayaa iyadana waxa weeyaan dad aad u tiro badan buu ku dhacay 80 qof buu ku dhacay xalay kaliya tirada ku soo ziyaaday oo magaaladan ah marka 100,000 ayaa hadda dadka kusii dhow yihiin 80 iyo waxoogaa bay sii marayeen saaka waddanka maraykanka marka khalkhalkaas ayaa jira oo dhaqaalihii galay oo noloshii galay oo caafimaadkii galay oo qof waliba meeshiisii uu ku cabsanayo marka awooddii rabbi baa laysugu yimi waa xilligii alla loo wada jeedsan lahaa kuwaasna waxaan rajaynaya in badan oo ka mid a inay ku islaami doonto iyaguna inay awoodda rabbi ku baraarugi doonaan marka insha allahu tacaala trump baa waxay ka sheegayeen wakiil ahaa isaga naftiisu hala tukada buur oo maaragtay hala tukado kaniisadihiina dee xilligoodii ay salaad mahayna waxooday samayn jireen ha sameeyaan marka waxay awoodda meeshay jirto way dareensan yihiin way iswada diidsiinayaan marka awooddaasuu rabbi dareensiinayaa dadka bini aadamku ducfigooda iyo tabaryaraantooda iyo awoodda rabbi iyo cidda kownkan iska leh ayaa la rabaa in dadka la tuso kownkan allah maamula
meel baa laga maamulaa marka inaynan maamul kala jirin ayay iyaduna daliil u tahay ilaahay subxaanahu watacaala haynaga badbaadiyo meelaan joognaba dadkeenna allaha badbaadiyo meelay joogaanba allaha badbaadiyo ilaahay subxaanahu watacaala wixii dhibaato o dhan haynaga badbaadiyo nuur cadde waa arkay inuu cudurkan la yidhi waa u xanuunsayay ilaahay caafimaad sariicoo deg deg allaha siiyo meesha cudurkan caafimaad allagu bedelo dad badan baa u jiifo soomaaliyeed oo meel walba jiifa wadamada waxaan filaya yurub sweden iyo norway iyo wadamada ugu sii daranba iyaguna ku jiraan dadka soomaalida u saameeyey sida la sheegayo marka ilaahay subxaana watacaala qof kastaba ilaahay caafimaad ha siiyo dembi dhaafna allah inooga dhigo dembi dhaaf allah inooga weliba yurja waxaa loo rajaynayaa qofka cudurkan ku dhinta waxaa rajo loo rajaynayaa inuu yahay shahiid insha allahu tacaala oo ilaahay subxaana watacaala shahaado uu siiyo cudurrada waaweyn buu ku jiraa oo loo dhinto ilaahay subxaana watacaala meelaan joogdaba haynagu ammaansado ilaahayna subxaana watacaala hayna xifdiyo allana hayna badbaadiyo wajazaakum allahu khayr وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور داعي الكبير الشيخ أحمد نور. دكتور الشيخ أحمد نور جزاك الله خير وأحسن الله إليك. ربي سبحانه وتعالى أنت نوجد عيسى كبدن بحكوس يهانك وجود ركوع ربي هوس كيس هرسدا مرك أوسنجرين هوس كلا أول هرسدا ربنا حكول عبسي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبيجا كوثر بارك الله فيك صاحب الفضيلة سيدا أدفنتي مرول نورجل تاجنتها وناج شرفتا dowladnimada iyo horumarka sida aad ula jeceshahay ubadkeena xaasaskeena dumarkeena da'yarteena iyo odayaasheenaba inay rabbi ku xirmaan rabbi subxaanahu watacaala jannatul firdaws ha kuu geeyo sida abubakar as-siddiiqna sideeda janno albaab walba rabbi ha qadaro inaad ka gasho jannatu naciim jannatul firdaws baaraka allahu fiik saaxibu alfadiila insha allah biidni illaahi kariim aad baan runtii kaaga mahad celinayaa fursadda qaaliga ah aad siisay sharaf gooniya ayayna ii tahay inaan soo wada galnay halkan on mar walba aad bulshadeena baraarujiso jazaaka allahu khayr saaxibu alfadiila qofkii dhintaa hadda wuxuu qoran yahay coronavirus uu dhintay dad odayaala ayaa dhintay dad baa iska dhintay waxaa laga yaabaa inay jirooyin kale u dhinteen annaga hadda maraykanka waaba dembiba qofka medical recordkiisa inaad aragto ama in lagu sheego xataa haddaad turjumaan tahay waad la socotaa yurub qofkii dhintaba waxaa la leeyahay dadka yurub jooga ma aqaano sida xaalku yahay mashkale sharci duwanahay ma dadka ma nidaaman meesha ka jirin in qof walba la yiraahdo cudurkaas uu dhintay oo community dhan la ceebeeyo hadda Sweden la haystaa la leeyahay Sweden kalina lama haysto marka Sweden wax laga sheego Seattle iyo Salt Lake City waa la aadaya maxaa yeelay Soomaalidii ayaa la qorayaa inay dad badaw yihiin dhowr qof oo Sweden joogtoon wacay maanta waxaan ku yiri hebel iyo hebel oo aad taqaano oo cudurkaas u dhintay ma jiraan qof kasta gadaalo marka u leexday marka maxaad ugu baraarujinaysaa hadallada la tuurayo qof lagu masabadanayo dhintay axmedow arrintaas nafteedu waa isweydiinayey shalayna mar baan u malaynaya inaan ka hadlaayey horta reer Sweden iyo reer Norway iyo dadkan leeyahay intaasoo qof baa dhintay oo Soomaali dadka waddanka ku dhintay half ka mid waa Soomaali la leeyahay waxaan aad u jeclaan lahayn dadka Soomaalida ahee meesha jooga ee wax ka og oo warkooda la qaadanayo inay dadka la wadaagaan oo xaqiiqada ay sheegaan laakiin anigu wararka qaar oo arkay waan sheegay oo waan malayn oo kumaan qancin nin Facebook iska soo fadhiisto oo dhahaya ii share gareeya warkiisa kuma qancin sidaas daraaddeed waxaan isleeyahay dadka ilaha rasmiga oo warka laga qaato ha la wadaagaan ummadda hadda warkaa aad buu isu loo mariyay meel walba marka insha allahu taala in la xaqiijiyo waa wax fiican dadka Soomaaliyeed waxa muhiim nooga ah talooyinka la soo jeedinaya aan qaadano sayna de anaga inoogu noqonin dad reer baadiya aan laynoogu malaynin oo mayna inaan ceebta u soo jeedin magaceena talooyinka aan qaadano ummadda un baan la midnahay kama aqoon yarin kama wax yarin bal inaga waxaan dheernahay dad ahlu diinaan nahay dad muslimiin oo yaan nahay muslimiintuna isagaa nidaamka ugu ilaalin badan ugu ilaalin fiican marka insha allahu tacaala dadka u dhinta waxaan filayaa inta badan hadda qofkii la xaqiijiyey oo wasaaradaha qolyaha caafimaadku way xaqiijiyaan qofka coronaviruska marka lagu sheego way og yihiin marka wuxuu dhintayna waa lama qarin karo dabcan waa la sheegayaa marka insha allahu tacaala dadkeenu laakiin talooyinka inaan qaadano unbaa muhiim noo insha allah ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك منو بلن قادaysa بريت 10 kale بريتو ان شاء الله waa soo gali doonaa ma aqaano meesha noqon doonto laakiin waan ka hadli doonaa qoliyo culim ee dhaqaatiir ayo hawshan inaan sii wadno waan rabnaa insha Allah taala hadii Allah
ما شاء الله سيدي جزاك الله خير marka واحسن الله اليك dadweynaha insha Allah waxaan rajaynayaa inaan idinla wadaagno mar walba baraarujin kala duwan deganaanta diinteena san ugu degi lahayn cuduradan dhaca iyo waxay yihiin iyo inaga nafteena wixii daynala gudboon iyo irshaadaad iyo talooyin hadday tahay iyo mar walba insha Allah taala idinka naftiisu nala soo wadaaga wixii aad jeceshiin in laga hadlo soo sheega insha Allah taala si ay culimadu uga hadlaan culimadu dadka un bay ka mid yihiin haddaan la baraarujinin naftooda oo loo sheegin oo mawduuca ka hadal oo mawduucaasa taagan oo waxaasa loo baahan yahay in la yidhaahdaa loo baahan yahay axmed idaa waqaca waad la soo xidhiiri kartaan facebookyada iyada oo dhan insha allahu tacaala commentiga waad kusoo qori kartaan taleefanada haddaad heshaan waad kusoo sheegi kartaan wixii loo baahan yahay marka insha allahu tacaala diyaar waxaanu xilli walba axmedow inaan dadkeena la wadaagno wixii maaragtay laga qabtiro wixii ay u baahan yihiin su'aal ama diini ha noqoto ama wixii kaloo talooyin ha noqda insha allah ما شاء الله بارك الله فيك واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله ربي جنه الفردوس هكو جيو ربنا هكو بدبادي سيده وبدبادي ابو الانبياء والمرسلين نبي الله ابراهيم عليه السلام بارك الله فيك صاحب الفضيله انغو كجعل كوغو فرحسن ايام فسحينا انغو كجعل او كوغو فرحسن وكسو دوين دونا ان شاء الله باذن الله الكريم ربي هكو بدبادي في الدنيا والاخره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا لها سوماليين دمانتين waxaan idinkaga tegaynaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayh wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh fadiilatu sheekh السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أحمد أديقنا